maalmahan waxaynu aad u maqalnaa xisbiyada mucaaridka ah oo dhow eray oo iskumada isticmaala waxaanu ka digaynaa waxaanu sheegaynaa waxaanu yeeri doonaa bal horta maxaynu isku haysanaa intaana doo digin bal harnaba laynine digiddu waa eray culuse waxaanu horta maxaynu isku haynaa waxa weeye doorashadeeni dib bay u dhacday horta yaa dib u dhigay doorashada adduunyada waa kow dimuqraadiyaddana way ku cusub tahay xisbi mucaarida oo doorashada dib u dhiga oo kii xukunka hayana yahay waar doorashada aan galno markhaatigeeduna waa shalay maantana markii ay yimaadeen madaxdii qolada wadani ee airboortka markay soo gaadheen waxay inoo daareen dardaar warin doorashadii dib loo dhigaya halkana waxa la leeyahay waar ma wixii baa la soo socotaan waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu xisbil xaakimkiinahay iyo xukuumaddii inaanay doorasho dambe dalkan dib uga dhacaynin madaxweynaha maanta joogaa ma sharaxna maalintii aad dib u dhigayseen mucaaridkoo wuxuu yidhi oo qoraal lagu hayaa oo kilibkeedii cajiradda la hayaa dib u dhigiddu waxay igaga xanuun badan tahay xabad dhafoorka la igaga hayo waayo aaminaadiisa siyaasiga iyo shakhsiyadda toona lagama filaynin maanu doonaynin axmed siraaye nin kursi ku sii waara oo doorasho dib u dhigta waayo tartankii baa iska daayay ulaanu tartay maayo marka maanta madaxweynihii xukunka ayaa nin doorasho dib u dhigayo jiidaya ma aha murashaxa kulmiyana wuxuu idin leeyahay waartii horena waa igu diideen oo idinka Israaciil labada xisbood u dhigay tan maanta idinka yeeri maayo hadaad u dhigtaan laba mucaaradka ku biicaba shacabkana waa sheegna dowladda inta waxaan ku soo dhaafaya maalmahan waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah maama carabi oo jirtay darabani waa banka washtakaan waa idilay markaasuu reerkii iga dheereeyo haddana si ashkatay waxaanu maqalnaa madaxda wadani oo tiraahda sebel baa la xuloo qaban waay dalkii dib baa loo hakraday ummadda kulmiya hakraday bal waa yaaba shantii sano u dambeeyey labada nin ee madaxda wadani mid wuxuu ahaa wasiirkii ugu awoodda badnaa ee dhan walba wuxuu toociyey ee cid walba jiiday ee meel walba ka booday ee weliba taariikhda siyaasadda isagoo awood aan loo dooran ku camal falaya oo ku cartamaya gabay meel la soo fadhiistay ee ummaddii shicibkaydu wasiirka u ahaa gabay goodi faan hanjabaad iyo dhalashaa isugu daray bal taariikhdu waa yaabe isagaa maanta caracaloor hebel baa wax loo qaban waaye iyo ummadda wax loo qabtay iyo kulmiyo ummadda sare ka daayay waa fulintii ugu awoodda weelshasana walaalow dhibtii aad geysatay baanu dhayaynaa ummadduna dhaawic aad gastay ka caraacalaysa ka labaadee hoggaanka la wadaagaa 13 sano waa ninka awoodda ugu badan ee sharci dejinta guddoomiye ka ahaa waxa dalka xeer ka baaqday ee dib u dhicidda doorashadu ka mid tahay waxa dadku tabaaya ee sharciga la isku canaaranayo waa ninkii laga sugaayay inuu fuliyo indha adaka maalin walba wuxuu leeyahay waxbaa la xumeeyo dib baa loo dhigay ahlayda midna culimada diinta islaamka aad taqaana iyo dadka damiirka bini'aadmiga damqo ayaa su'aal weydiinaya inagu cusub oo inoo curiyo xisbiga wadani qofka muslimka ah waxyaalaha uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam inagu dardaaray waxa kamid ah inaad jinaasada raacdo inaad markuu buka soo siyaarato inaad markuu ku marti qaado ka qayb gasho marti qaad ku qaaday hadduu arooskiisa iyo haddii farxad kala tahayba inaad ninka muslimka ah ee aad isqabataan 3 habeen wax ka badan caloosha wax ugu hayn sidaasay diinteena suuban inoo sheegtay dhaqankeena Soomaaliyeed bal waxa doonayaa in la iga jaahil bixiyo qof sakaraad oo xanuunsanaya oo xaaladaha markuu bini'aadmu miyir doorsoon yahay ugu liito ku jira ay tahay inaan kamarada la dul tago oo ka doono xudxuda siyaasadeed booqashada dadka bukaa ma bini'aadnimo ma diinta ina fartay mise waa istustu siyaasadeed oo baaraha Facebook iyo lagu baahiyo
sawirada siyaasadda taasi annaga diintuna nooma ogola dadweynuhu nooma ogola dadka buka haddaanu siyaaranayna lillaahi wa rasuul baanu u siyaaranaynaa dadnimada damqashaanu u siyaaranaynaa haddaanu wax tarayna cidina ogaan mayso waayo diintaasaana faraysa waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan uga dheerayaa maalaan media ay waxaan kaas ahoo maalmo Facebook wax lagu qoraayo xukuumadda la habo ayaa la abaarayo waa la weeraray doodaan baa bari ka yahay dawladdii kacaanka ahayd Afrika Baakeeda wuxuu yidhi xalladaynta xaashiya qorka iyo war islaxaydka run xaseenta been iyo xasanad xayr suuyeerka rag xagta xafta iyo xigtiisaba kamaal oo xumbow reebka xagar iyo xangeeya uliska iyo xubur dusha u saarka sumbu ku qoosho dhir ku shubay xoolo dusha ku saaraya oo cunbu ku leeyahay xareed awdka dhoobada xagageen haama ku xabmaynta waaryaale wadani hadda waa idinkii wixii sameeyay maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh